بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، walaalyaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aan isku xusuusinaynay sidaan uga faa'iidaysan lahayn bisha barakeysan ee ramadaan. xalqadan waa xalqadii 25aad ee xalaqaadkii koobnaa ee aan ugu talagalnay bishan khayraysan. xalqadii tan ka horeysay waxaan soo tilmaanay qayb ka mid ah tilmaamaha dadka ahlu jannada ah. marka qof walba muslim waxaa laga rabaa in uu iska dayo tilmaamahaasi inuu ku sifaysan yahay. tilmaamahaas la sheegayo ee jannada lagu galo aniga qayb ma ku leeyahay mase leeyahay tilmaamaha noocaas oo kale. maxaa aad iyo aad bay muhiim u yihiin. aayaddii hore ee aan soo akrinay fi suurati aali cimraan aayadda 130 ilaa 135 waxaan soo tilmaanay 3 qaybood oo ka mid ah tilmaamaha dadka ahlu jannada ah, oo ah dadka ahlu jannada ah waa dad ilaahay ka baqa. dadka ilaahay ka baqana waa kuwa nafaqada bixiyo oo xaalad walba ay ku sugan yihiin, hadday barwaaqo ku jiraan iyo hadday dhib ku jiraanba daa'iman wax bixinta ku dadaala. ahlu sadaqa ah. waxaan kaloo soo tilmaanay dad caradoodii kontroolo oo isqabanaya markay caroodaan ee caradu ayna ku ridin dembi iyo dulmi ayna ku ridin, oo sidaas sidaa darteed nabigana calayhi salatu wasallam ninkii u yimid oo yidhi awsini yaa rasuul allah, ii dardaaran. markaasuu yidhi laa taqdab, ha caroon. haddana wuxuu yidhi ii dardaaran, laa taqdab, ha caroon. haddana ii dardaaran buu yidhi laa taqdab. 3 jeer buu nebigu yidhi ha caroonin. taas waxay tusaysaa caradu dhibta ay keeni karto. sidaa darteed qofka markii uu caroodo waa inuu naftiisa kontroolo, ilaahay xusaa, oo haddii uu markaa caroodo u weysaystaa, oo hadduu taagan yahay fariistaa, oo xaaladda uu ku jiro uu bedelaa si ay caradii uga ba'do. maxaa yeelay carada oo la kontroolo waxay ka mid tahay min asbaabi dukhuuli janna. tan kale dadka oo la iska cafiyo, qalbigoo la saafi yeelo, dadkana cafinta la badiyo si ilaahay kuu cafiyo. tilmaanta afarta aan soo tilmaanay tilmaamahaas oo masalan dadka muttaqiinta ay leeyihiin 3daas ah. tan afraada iyadana waxaa weeyaan dadka muttaqiinta ay leeyihiin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. dadka mu'miniinta waxa weeye annaga bani aadam baan nahay, waan dembaabayna, aad baan daciif baan nahay. haddaan wanaagsan nahay oo daacadii ilaahay ku jirno oo ilmaynayno, berri waxaad arkaysaa adigoo dariiq kala maray oo khaldamay oo daacadii ilaahay subxaanahu watacaala ka gaabiyey ama xumaan ku dhacay. laakiin waxaa lagu yaqaana dadka ahlu iimaanka ah kuma tagaan xumaantaas oo kuma sii fogaadaan. markiiba ilaahay bay xasuusanayaan, ilaahay bay u toobad keenayaan, ilaahay bay dembi dhaaf weydiisanayaan. sidaasaa dadka mu'miniinta muttaqiinta lagu yaqaana. والذين kuwa idaa facaluu faaxishatan, faaxisho markay la yimaadaan ama faaxisho ay ku dhacaan. faaxishadu waa fal fool xun sida zinada iyo wixii la mid ah. qofka mu'minka zina ma ku dhici karaa? laa shak waa ku dhici karaa. maxaa yeele waa bani aadam, isagoo mu'mina ilaahay iyo rasuulkiisa jecel ayuu zina ku dhici karaa. laakiin haddii uu ku dhaco waa ka soo laabanaya oo ilaahay buu baryayaa oo u toobad keenaya. ilaahayna waa jecel yahay dadka toobad keena. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أما نفتودي أي كذل ميان حمان أي ذنوب أي قلين أو إلهي سبحانه وتعالى يكو عاصيين ذكروا الله إلهي بيحسوسنا فاستغفروا لذنوبهم. ذنبي لي ما ذنبنا إلهي سبحانه وتعالى أي ذنب داف كوي دي سنيان. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وحوين كواسي dembi dhaaf ilaahay weydiisanayaan, xumaantiina ku joogtayn maayaan oo way ka go-ayaan, si dhababa ilaahay usu soo noqonayaan ayagoo markaa og xumaantaasi dhibta ay keeni karto. kuwa tilmaamahaas leh ilaahay wuxuu ku tilmaamay ulaa'ika jazaauhum maghfiratun min rabbihim wajannaatun tajri min taxtiha alanhaar. waxay leeyihiin dembi dhaaf ilaahay xaggii ka ahaaday iyo jannooyin hoostoodii webiyo ay soconayso taxta qusuuriha wa ashjaariha. marka walaalayaal waxaad arkaysaan tilmaamahaas lasoo tilmaamay inay aad iyo aad muhiim u tahay in qof walbo ilaahay ka baqa laga helo si jannooyinka noocaas oo kale ee barwaaqada badan ilaahay subxaanahu watacaala u geliyo. hada wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh.